taasi dareenkiisa ku aadan xafladan iyo qaabka u dhacday iyo sida uu arko dhalinyarada Soomaaliyeed ayagu maaragtay waxbarashada dhankeeda kaalimaha muuqda ka ciyaara xilli ay ku sugan yihiin wadamo shisheeye oo ay ku sugan yihiin jaaliyada kala gedisan oo dunida daafaheeda ka yimid iyo waliba dareenkiisa ku aadan jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Ohio oo maanta booqasho xafladan uu kaga qayb galay ku soo gaaray bismillaahir rahmaanir rahiim xaqiiqdii xafladan waxay xaflad si fiican loo soo agaasimay oo si wanaagsan looga soo shaqeeyay waxaana igu casumay wasiirkii hore tacliinta Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed runtii xafladan waxay ahayd xaflad lagu abaalmarinayay dhalinyarada ka qalin jabisay dugsiga sare iyo jaamacadda oo lagu siinayo scholarship waxaana weeye mid si fiican looga soo wada qayb galay oo kulli bulsho weynta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo degan Ohio ay yimaadeen مسؤولينتي سرسرة أو مقالة iyo gobolkan degana joogayna ay ka soo qayb galeen runtii waxaan oran karaa waa xaflad wanaagsan insha Allahna waxaan rajeynayaa sanad walba in la qabto si loogu dhiirigeliyo dhalinyarada oo lagu gubaabiyo inay wax bartaan oo ay dadkooda iyo caa'iladooda iyo qoyskooda iyo dalkooda ay anfacaan mudane markii kugu horeysay ayaan filayaa aad aragtay jaaliyad Soomaaliyeed oo xaflad caynkan kala qabata dareenkaagu sida noqda markaad aragtay dhalinyaro Soomaaliyeed oo jaaliyadoodii waalidiintoodii eheladoodii asxaabtoodii iyo waliba maayirka ama duqi magaalada Columbus Ohio Michael Coleman uu ka soo qayb galay runtii xafladan caaw halkan lagu qabtay waxay ahayd xaflad runtii aad loo soo agaasimay oo aad looga soo shaqeeyay waxaana la og yahay magaaladan Columbus Soomaalida degan inay kor u dhaafaan in lagu qiyaaso 40,000 oo la yiraahdo waa magaalada labaad ee Soomaalida u badan tahay Mareykanka marka waa filayay in runtii dadku halkaan saas u yimaado oo lagu qiimeeyo waxbarashada iyo lagu dhiirigeliyo laguna abaal mariyo dhalinyarada dadaashay oo runtii si fiican wax u baratay marka waxaan oran karaa in sanad walba sidaas la yeelo oo dhalinyaradaas la dhiirigeliyo shaqada ay qabteen oo dadaalkaas dheeraadka ah ay muujiyeen in lagu abaalmariyo runtiina haddee magaalada waxaa jooga dad sida Cabdinuur oo kale dad maxaan ku raahdaa aad maaragtay looga ixtiraamo bulshada dhexdeeda Soomaaliyana haddee howlo wanaagsan ka soo qabtay aniguna runtii aad yaan maaragtay maqsuud uga ahay ka soo qaybgalka aan kala soo qaybgalay halkan oo aan la hadalnay waalidiinta inay xoogga saaraan waxbarashada carruurtooda in waalidiintaasu ay ahaadaan aabbaha iyo hooyaduba dad muhiimadda gaarka ah siiya ama priority-ga siiya waxbarashada carruurtooda si carruurtaasi u anfacaan naftooda iyo waalidiintooda iyo diintooda iyo dalkooda aad u mahadsantahay mudane maxamed cabdilaahi farmaajo waxaan u mahadcelinayaa TV kulmiye runtii hawsha wanaagsan uu bulshada u hayo